بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها فدرالك سوماليا مدن حسن شيخ محمود مدحوينها جبلان أحمد إسلام وزير الدولة وزارة دقاشان دقة طليها مدن حوق الدولة الصوماليات مدحوينك حيانك جبلان سفير الجرب هل كان وجوغا ururka iyaga dadka halkan ka jooga madaxda amisom halkan nagala soo qayb gashay maanta shirkan xildhibaanada halkan ka jooga federal ama noqdeen ama gobolka noqdeen madaxda kale oo sharafta leh halkan joogta saraakiisha saraakiil xigeenka dableyda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi madaxweyne waxaan rabaa halkan inaan marka ugu horeysa uga soo jeediyo ama kugu muxuu ahaato sheego halkan inaad sidaad uga qayb qaadatay in la abuuro ciidan isku dhafan oo Soomaaliyeed aad iyo aadna aad geed dheer iyo geed gaaban baa u fuushay inuu arrintan ay noqoto arrin bilowga waxaan kaloo aad iyo aad halkan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaan waxaan kaloo rabaa halkan in aad iyo aad ugu mahadceliyo guddigii isku dhafka oo halkan hawl aad iyo aad u adag ka qabtay waxaan kaloo rabaa halkan inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo dawladda Ingiriiska oo runtii nagala qayb qaadatay tilaabadeedii ugu horeysay ayagoo oo la kaashanaya ururka igad haddii ayna samayn lahayn arrintaas uusan maanta noo hirgaleen waxaan kaloo rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan shacbiga degan Jubbaland oo runtii waxgaradkooda iyo dhammaan soo dhaweeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in halkan laga bilaabo inay muxuu ahaa inuu ka hirgalo ay qayb weyn ka qaateen aad iyo aad baa shacabka Soomaaliyeed u mahadsan yahay iyo guud ahaan Jubbaland shacabkeeda waxaan kaloo rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo gabdhaha Soomaaliyeed oo runtii markastaba door weyn ka qaatay halkan in ay ku guubaabiyaan muxuu ahaato dadkii waday hawshan madaxweyne waxaan kaloo rabaa halkan idinka hortiina iyo shacabka Soomaaliyeed hortiina iyo ciidankaba inaan ugu mahadcelino ciidanka Soomaaliyeed oo ka xoreeyay meelihii ay dhibaatada ku hayeen dadka nabadiidka ah oo ugu dambeysay Baardheere iyo Diisoor ugu dambeysay iyo meelo kala gadisan waxaan leeyahay hambaliyaan leenahay dadkaas waxay mid yihiin in aad muxuu ahaa maanta u hambaliyeen dhamaanteen inta halkan joogto iyo inta ka maqanba waana mid la rabo in laga rabo ciidankan xoogga dalka Soomaaliyeed oo halkan laga aasaasay in ayaguna diyaar u noqdaan inay doorkaas oo kala qaataan kana xoreeyaan meelaha cadowga nabadiidka oo ku jiro madaxweyne markaan halkan ka bilaab halkan nimid bishii May waxaan soo fiirinay meelahaas hadda tendooyinka ama ka dhisan yihiin ama meelo kale oo kala gedisan oo ciidamadu markaas joogeen ama aysan deganayn ma aanan ku riyoonayn in ay muxuu ahaa si dhaqso ah noogu hirgeli doonto arrintan laakiin ururkii muxuu ahaato iga gacantayna siiyeen iyo gacantii ay geysteen guddiga isku dhafka ayagoo aad iyo aad markastaba wixii dhib oo yimaado kula soo noqonayay madaxweynaha Jubbaland runtii dhibaatooyin badan xaliyeen waxa weeye aad iyo aad ayaan waxaan ugu dhiirigelinayaa meelaha kalena sidaas oo kaleeto inay la sameeyaan oo gacan siiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aasaaskiisa iyo wax ka qabashadiisa sida Jubbaland hadda ay gacan u siisay waxaan rajaynayaa inaad noqotaan kuwii tusaale u noqda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ciidanka la isku dhafay oo aad ugu horeysaan adinku waxaan rajaynayaa inaad noqotaan guulo waaweyn kuwii u soo hooyay shacabkoodana ku faano waxaan aad iyo aad runtii muxuu ahaato ku dhiirigelin lahaa in gacanna la ka siiyo arrimaha kaleeto oo hadda dhiman
oo sidaan oo kaleeto aan uga baahnay inaan ka samayno in gacanna la ka siiyo ayaan u baahannahay dawlad ahaanna gacanna la ka siiyo caalamkuna uu gacan naga siiyo annaka ujeedadayadu ciidankaygu wuxuu yahay inaan nabaddiidka ka xoreyno dalkayaga waxaan halkaan rabaa inaan idhaahdo taariikhda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waa ballaarantahay lagamana sheekayn karo laakiin waxaa tihiin ciidanka isku dhafka ahaa ee ugu horeeyay oo saldhigga 43aad muxuu ahaa u noqon doona saldhig u noqon doona sharaftiisa iyo spiritigiisa inaad ilaalisaan baa loo baahan yahay waxaan leeyahay maadaama qorax ay tahay halkaan inaan hadalkayga ku soo gaabiyo ciddii ka qayb qaadatay oo dhan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin runtii waana waxaa weeye dadka Soomaalina waa abaalguda waana abaalgudi doonaa haddii aan la idmo dadkii nagu kaalmeeya ciidankayaga abuuridiisa iyo tababarkiisa iyo kaalmeyntiisa waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha israacdo xoogga dalka Soomaaliya ha noolaado adinkuna noolaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.